in ay carabnimo sheegtaan qabaa'ilada Soomaaliyeed waxay soo bilaabatay xilligii gumeystaha dalka u yimi waxaana ka dambeeyay markaasi laba qodob oo heerkan soo gaarsiiyay qodobka koowaad wuxuu ahaa gumeystaha markuu dalka yimi wuxuu dadka u kala qaybiyay saddex dabaqadood oo kala ah dabaqad madow ah oo hooseysa dabaqad dhexe oo dadka cascas sida Hindida iyo Carabta ah iyo dabaqada sare oo cadaanka ah Soomaalida markaa qabteeda isla weynadeeda markay u cuntami weeday dabaqada hoose waxay isku dayeen in dabaqada dhexe soo gaaraan iyagoo markaasi u soo maray carabnimo waxaana sida ku bilaabatay markaa aragtidan carabnimada ah waxayna ahayd aragti siyaasadeysan oo qabiiladeysan oo ay qabiiladu rabeen in ay ku kala fadilnaadaan ama ay ku kala sareeyaan qabiilada xilligaas hogaaminayeen way badnaayeen laakiin waxa kamid ahaa qabiilka Isaaq loo yaqaano iyo Warsangeli oo markaasi taabacsanaa Ingiriis iyo qabiilka Majarteen la yiraahdo oo markaasi Talyaani taabacsanaa aragtida labaad waxa weeyaan aragti diin ku saleysan oo waayahaasi wadaadadii joogay ee baawul suufiga ama suufida ahaa ay waxay ka dhex arkeen qodobkan qodob cibaado ah oo Ilaahay loogu dhawaanayo waxayna yiraahdeen waxaan nahay Ahlul Bayt dadka kalena waa ka fadlannahay waxaana dhalay Faadima bint Rasuulillaahi iyo Sayyidina Ali bin Abi Talib maadaama markaasi wadaadadan wax walba cibaado ay ku dhigi jireen oo ay xud bidca iska hayeen iyaga qodobkan dadka ku baraarujiyay su'aashiis weydiinta badan markaa waxa weeyaan maxaa soo gaarsiiyay waayahan oo aragtidan ka dhigay aragti aad u xoogan aragtidan markaa waxa heerkan soo gaarsiiyay isbedbedelka waayaha markaasi iyo jiilasha faraha badnaa ee kala dambeeyay ayaa waxay keentay jiilba jiilka ka dambeeyay inuu fikirkan la wadaago kadibna aragtidan ay ku dhex weynaato dadka waxaana ugu daran aragtidan oo aad u aaminsan dadka soo gaaray xilliyada dagaalada baadna Soomaalida ee wada gashay ee 80-maadkii iyo 90-maadkii xaqdiga iyo xaasinimadana soo arkay qisadan markaa waxay u egtay qisadii qoomkii Nabi Nuux oo sida wada ogtiin qoomkii Nabi Nuux asnaamtii caabudi jireen marka hore asnaamtaasi looma dhisin cibaado iyo shirki iyo in Ilaahay la barbar dhigo laakiin waxa loo dhisay ama qoomkii iyaga ka horeeyay qoomkaas waxay u dhiseen wadaado wanaagsanaa oo Ilaahay caabudi jiray isla markaana dadka diinta bari jiray ayay astaan uga dhigan si lagu xasuusto balse waayihii oo isbedelay iyo jiilashii isbedelay waxa soo baxay jiil aan garanayn asnaamtan waxay yihiin kadibna shaydaanka wuxuu ku yiri waa ilaahiyadiina ee caabuda saas ayay ku caabudeen isku soo duuduubo Soomaalidu ma aha carab waa dad taariikh guun ah leh ilaa xilligii faraaciyiinta ilaa xilligii koreeyay nabi aadanba dad badan oo cadaan u badan ayaan waxay aaminsan yihiin in Soomaalidu ay yihiin hooyadii bini'aadanka sida masaariduba ay u yihiin hooyadii xadaaradda marka anaga dhalinyaro ahaan waxaan nala gudboon in aan ku faano oo aan heysano isla markaana aan ku kalsoonaano sinjigeena Soomaalinimada oo aanan ka firdhan isla markaana aanan dhageysan wadaad caqiido xun xambaarsan oo maalin lagu yiraahdo waa la duulaa maalin lagu yiraahdo waxyaabo kale oo aanan garanayn iyo sidoo kale garaad iyo caaqil xaasidnimada qabyaaladu ee madax martay labadaasba inaan dhageysan oo wax loo baahan yahay aqligeena iyo miisaankeena wax walba